السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضي داوديال إذا لهانتي بميل كستو ديقا داوانسان آد بان إذين سلامية وانيقا أبحشدا هالكا ديقا داوانسان هو أبحشدا أوفيسيال لما أنا صحابتي ديقو حرن آد بان إذين سلامية ميل كستو أدونك دافيسي آد كتشوكتان مدوى لكلبادي إنا الحافمات قبتان رجينيا أنيقا نسيدو كلا وانفعاني أني فاميلكيغا أديقا نسيدو كلا انتو رجينيا هادي آد بوكتاني إلهي حافمات سريعنا إي عمر دير هاكو سيو مدوى لكلبادي ليسمان عرق ليسمان مقال duruufo jira ama xagga familka ah maadaama hooyeyska hay caruur haysata sida aad hadda ka horba iila socoteen oo u soo geliya caruurteeda oo wadanka ku cusub qofkii garanaya ama wadanka jooga processkiisana iska fahmaya dhan markii laga istaagana qofku mar hadii uu hooyo yahay kolley chancekiisu uu iska yaraanaya inta caqliga u saaxiib waa iska dareemaysaa maanta waxaan si chance helay ama aan waqti u helay inaan mar labaad idin soo farfariisto rubacadaadigi soo rogaal celi aad iyo aad baan idin salaamayaa maanta halkan ayaan soo fadhiya waa tahay waa maanta iyo maalintii jacaylka ayaan dib soo laabtay bal nasiibkayga ka warrama maalintii jacaylka ayaa waxa ay ku beegatay in aan dib u soo laabto aan idin kala soo muuqdana bartayda YouTube ama channelkayga waxaan leeyahay labadii isjecel ee wada joogta ee maanta wada xusaysa Allah hayso kiin barakeeyo labadii kala maqan midba gaarkiisa u xusayna waxaan leeyahay ilaahay hayso kiin soo dhaweeyo qolada ah iyaguna ilaahay xeera maran xoolo soo gelina waxaan leeyahay ilaahay wax khayr qaba ha idin la kulmiyo war obriyahan dambe sida la sheegay aad iyo aad loogu kala cabanaya xagga dhalinyarta siiba qolooyinka qurbaha dhan walbana ha noqotee inantii waxay tiri hiblaayo 15 baa laga bixiyay hiblaayo 10 baa laga bixiyay hotelkaas loogu tumay hotelkaana waa lagu soo doonay abaayeleeyay hiblaayo nasiibkeeda ayaa siiyay in hotelna loogu tumo hotelna lagu soo doono alxamdulillah adiga saaxiibka haduu ku jecel yahay adduunkana uu ku jecel yahay xasana haatee aanu kharashaynin khasamiya lacagtii hiblaayo loogu tumay inuu keenama magaalada soo xada saaxiibay intaasina waa iga kaftan guurkii iyo dhalinyartii aad iyo aad bibriyaan kala cabanayaan siiba qolooyinka qurbaho waxay yiraahdeen wallahi u bixay aad iyo aad baan u cabanaynaa qof baa maalin aan wareystay wiil wuxuu wallahi u bixay aad iyo aad baan u dhibanay waxa ku dhibaatada taala maxay tiibaan ku walaalo dhalinyartii way soo guursanaysaa ma sha Allah reer isku baraaray baa jira maxaa adiga mushkiladu ku haysata calafkaygii baan soo bixin weyn oran karnaa wada calafkaagu inaad u raagi karaa laakiin mushkilada adiga dumarka idin kala haysataa maxay tahay wixii igu jawaabay inaad yartaan la hadlaaba waxay leedahay 15 kuna igu soo baxay khashkaygii waa inaad bixisaa waxaan ku uri dabadeedna wuxuu naadar mushkiladaas ay haysatay iyada 15 keedii markaan bixiyo aniga 15 kayga ama 10 kaygii igu soo baxay yaa bixinaya kar waa loo wada islaame waa aqli galiyaas isaga tiisi isaga yaa bixinaya karo waxa laga yaabaa hadda kumba mabahayaba ama mujaharkiisa aba 1500 600 adduunkada ku dhiibo biil uu ka diro noloshiisana uu ka dibaro ee waxba ba soo harimayaan hadduu ugu bato dhow birood wax seef kareeyaa buu waxaan ku dhowr kun ka dhiibi karaa waxaan la guurku horta qofka bilaadanka ilaahay marka uu fuugayo qofka adduun lagu maxsho adduun la helaa la waaya wuxuu adduun taraana ma jirto dabeecadda iyo dadnimada ayaa wax walbana kana qaalisan kana importisan marka qofkan hadii maanta isagoo maran ad waqtiga waayaha ugu samirtid oo nasiibku uu ku geeyo waxa laga yaabaa bari ka maalin hadii maxay hayto aad caraf isku yeelataan ubadna meeshii maada adduunkiisa iyo noloshiisa adiga iskale waayaha isbedelay oridiisii baatay wax ka xumaanaya ma jirto armad iskuba badhaadhaano adiga maalintu ku helo buri weyn noqdaa waxashkana markuu geeyaan adduunkana uu marad ku dalxiis geeyaan hadda garan waa wiilkii shalay ka bixiyay $100 ama $200 waxa dhici karta in maalinba diyaarad ku gooshiyo uu kolba meel kaaga dajiyo adduunku waa halka labadiisa gelinay hebel iyo heblaayadii shalay 10,000 iyo 20,000 iska dhiibayayna adduun waystaba mareenay inuu waqtigoba saacidiba waayo oo beritoole dabkaba waxay saaraan ay waayaan adduunka way ka dhacdaa taasoo kale horena way u dhacday marka waxaan leeyahay
siday doontaba ha ahaatee dadka ka baaqday maalintii jacaylka waxaan leenahay ilaahay ha isu kiin barakeeyo intii kala maxay ahayd tori kala baaday dadka kala baaqdayna waxaan leenahay ilaahay ha isku kiin soo ururiyo intaasina waa kaftankeygii maanta halka waxa uu soo galay inaan halkan idin kala muuqdo oo maxay ahayd tori maalinta jacaylka ee la xusayo ee dadku xusayaan inaan aniguna weji qurux badan oo farxad la aan dadkayga aan ku soo hor istaago waxay dadka karaan asxaabtayda qaaliga aad iyo aad baan idin salaamaya intaasaan idinkaga tegayaa waxaan usoo galay maanta halkan in aan dib usoo laabtay inaan halkan idinka caddeeyo inaga oo barnaamijyadeennii ama sidii aad iga barateen aynu halkan raygeena ama wixii aynu isku weydaarsan doono aniga iyo mar labaad iyo soo noqod xiisale oo aynu halkaa ka wada socon doono khayr baanan idinkaga tegaya adiga oon marnaba ka hilmaamaynin laybka iyo sheerka oo adigana waxay taraysaa adigana dee aan waxba ku yeelinin aadna waan kuu salaamayaa meel kastoo joogto maalintaa ku macaan